wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mustafa Farax Abraar iyo maayirka degmada Saylac mudane Xuseen Idla Barkhadle ayaa si wada jira u dhagax dhigay xarun wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu ay ku yeelanayso dhismaheega magaalada Saylac. xaruntani ayaa horay u ahaan jirtay wasaaraddii boosaha iyo isgaarsiinta ee waqtigii dawladii Soomaaliya la isku oran jiray. maayirka degmada Saylac mudane Xuseen Idla Barkhadle oo halkaasi isagu laba kalmadood ka soo jeediyay ayaa waxa uu yiri waxaad gudootaan halkani waa boostii hore ee isgaarsiinta halka ilaahada ka baabaaday cabirka maanta aan ku joogsanina waxa weeye 15 18 dhul baa leedahay 15 bar ilaa galbeeda koonfur ilaa waqooyi 18 gudoon waana boostii isgaarsiinta halkii hore ay lahayd ay ka baabaaday waxa ku xada deerka xabaale xagga dambe waqooyina waxa ku xada aqalka wasaaradda deegaanka danka kale wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mustafa Farax Abraar oo u mahadnaqay maayirka degmada Saylac ayaa waxa uu yiri waxaan maayirka degmada Saylac Xuseen Idle kala wareegay oo uu dhagax dhigay maanta xaruntii oo ahaan jirtay xaggani boosaha iyo isgaarsiinta cabirka uu sheegay intaas uu leeyahay waxaan halkan u niminay safar shaqo safarka shaqo ahaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo khilaaf dhexdooda soo qala dhex galay maayirkii hore waxaanu ku xalilay khilaafkaas wixii sharciye murana in loola noqdo hay'adaha garsoorka ee ay qusayso oo magaalada iyo dawladda hoose dhibaatada iyo buuq iyo waxan laga daayo waxaan ilaahay mahadiya inaan maayirka maanta meesha dhagax dhigay ma aha xarunta kale haata meesha aan dhagax dhigay ama dhulka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu lahayd ee eegayo dhammaan dalka oo dhan oo Saylac ka bilaabayo ayaan soo mari doonaa insha Allah billahi kariim bari ilaa galbeed maanta waan ka bilaabay Saylac waxaan tagi doonaa ceer gaabo laas aanood dhammaan dalka Soomaaliland meel kasta wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu leedahay dhulkii wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta iyo meelaha dhisan oo dhan waan soo eegi doonaa Maxamed Cawaala Daahir Hon Cable TV magaalada Saylac.